السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير وزارة عافيمات دكتور علي حاجي، وزير حقيقة وزارة سبورتيغا وهرني وهنجرت عيارتوي هر قرن رسول ويننا إذا ما تشرف ككلا أو دمان وقصة قيم قلي كان هان مرتدى لوجت من دلك التركية ولا علينا دكتور صادق وهو قامينايو ومرة وهيجا نوعه ومدى الصوماليات وحلا له وحي كتاجير كران إني كتاجيران يا عبد الواحد أنت عمر كان كجدبه وحربا إن وربحين كومن إذا كسيو برنامج ما أنت نوجوجنو برنامج كان هذا ما أنت نوجوجنو مركان حاجة ما كسب باللعبه إلهي هذا إسبتال كي يردميلي وحو معمولي وخرج كريه دريال عافيمات وفديه صدح بقول يلح هويو taasoo macnaheedu uu yahay qaybtii koowaad waxay ahaayeen 105 waxaa ku xigtay 100 haddana waxay ahayd 110 daryaalka caafimaad oo loo fidiyey dhammaantiis isbitaalka uu maamulay. waxaan hadda warbixin kooban idinka siin doonaa qaybtan hadda aan u joogno oo xafladeeda aan dhammaynayno. qaybtan waxaan ku bilownay 100 hooyo hooyooyinka aan qaadanay shuruudaha noogu xiro waxay ahayd hooyadu inay tahay qof u baahan hadday noqon lahayd xag dhaqaale hadday noqon lahayd dhinac kasto ayaan maaragtay ku daryeelnay. waxaan ka soo ururinay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir oo aan u qaybinay dhammaantood inkastoo hadda boqolkan u dambeysay 51 ka mida aan ka qaadanay degmada Xamar Jajab oo ah degmada anagana aan deganahay ama maaragtay arrintaana waxaan u yeelnay degmooyinka qaybi ugu horeeyay hooyooyinkii dib ayay ku noqotay isbitaalka inay soo gaaraan. hooyooyinkan barnaamijkan waxyaabihii aan u qabanay oo barnaamijka waxaa ka mid ah daryeel caafimaad oo hufan ayaa loo sameeyey. takhaatiirta cudurrada haweenka iyo dhammaantoodna ay ka shaqeeyeen. takhaatiirta cudurrada hooyada iyo dhallaanka qaabilsan ee ka shaqeeyey waxaa ka mid ah oo aad u wada taqaanaan doctora Mashuura iyo doctor Ifraax Cabdi Nuur oo labadaba ah cudurrada haweenka iyo dhammaan takhaatiirtii la shaqeynaysay hadday noqon lahayd neers hadday noqon lahayd umulisooyin. ujeedada aan ka leenahay waxay ahayd hooyada in maaragtay daryeel caafimaad oo hufan. waxaa kaloo jirto ilmo meyd ku dhashay tiradoodu waxay ahaayeen 33 baarista caafimaad iyo wax walba markaan u sameynay ilmaha meyd ku dhashay waxay noqdeen 5 halka 28na ilmo caafimaad qaba inay ku dhasheen. waan ujeedada aan leenahay maaragtay oo ka dambeysay barnaamijkan inaan fulino waxyaabaha hay-adda manhal iyo nagu kalifana waxay ahayd waxaan aragnay hooyooyin fara badan oo ama isbitaalka yimid ama goobo lagu soo arkay oo dhici karta inay aad iyo aad u xanuunsanaayeen. 306 aan idin sheegayo boqolkiiba 100 daryeel caafimaad oo hufan ay heleen. mid walba gurigeeda loogu tagay intaas soo jeer isbitaalkana qaybo badan ay yimaadeen. haddana sida agaasimaha uu ka dhawaajiyey barnaamijkaasaan wadi doonaa inta maaragtay oo hooyo aan ka gaarayno hooyo Soomaaliyeed oo caafimaad qabto ilmo caafimaad qabo. waxaan rabaa inaan idinla wadaago laba arrimood aan u soo joogay. macallin jaamacad noo dhigaa wuxuuna yidhi Belgium mashruuc la maalgashado keeba ugu wanaagsan 20 dhakhtaraan ahayn adduunka ka kala timid qof kastoo naga mida waxbaan sheegnay. marka wuxuu yidhi wax la maalgashado adduunyadan waxaa ugu fiican hooyada uurka leh say u dhasho ubad caafimaad qaba. mid kale oo nin Maraykanna wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey America aad arkaysaan waddankaas intuu dhan yahay mustaqbalka America muxuu yahay. wuxuu yidhi mustaqbalka America waa carruurta hadda dhalatay ama dhalan doonto. macnaha la ka dambeeyana waxay tahay inaan maaragtay u istaagno hooyooyinka Soomaaliyeed carruurta ay dhali doonaan inaan waxba u qabanno. mustaqbalka Soomaaliya aan leenahayna waa hooyada iyo dhallaanka. waana mahadsantihiin insha Allah.
أدو ما سيها دكتور صالح محمد مالين وقسمها عافمات كسبيتال يردميلي وكجمع هاد علنا مدام وقت وجابين هنا مسؤولين تا مرتدى قيمها بدنا حكوا عصرين وقت قعدنا وقصوا